Salaamulla calaykum. Maanta halkaani waxaan kusoo jeedin doonaa sheekooyinkii qosolka lahaa iyo xigmadii ciyaal shiilaad. Sheekada koowaad waxaa la sheegaa in waagii hore magaalo yar oo Soomaaliyeed ay ku noolaan jireen dad reer guura ah oo nolol maalmeedkooda ku tiirsanaa xoolo dhaqashada iyo ganacsiga. Dadka deegaankaasi waxay aad u wada yaqaaniin nin lagu magacaabo ciyaal shiilaad. Ciyaal shiilaad ma ahayn qof caadi ah, wuxuu ahaa nin dooni raac ah, laakiin isla markaasna aqli iyo xeelado badan. Qof walba oo deegaanka jooga wuxuu ka sheekeyn jiray khiyaamadiisa iyo sida uu had iyo jeer uga baxsado xaaladaha adag. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu ciyaal shiilaad wuxuu soo galay tuulo yar oo ay ku taalay hal ceel. Tuulada waxaa joogay dad badan oo saf ugu jiraan inay ceelka biyo ka dhaansadaan. Ciyaal shiilaad wuxuu soo qaatay weel maran u safka ayuu dhinac ka soo galay. Markii uu arkay halhaleelka dadka tirsiga badan iyo safkan dheer oo aan dhammaadka lahayn, ciyaal shiilaad wuu fikiray. Wuxuu isdhahay sideen uga hormari karaa safkan dheer inagoo aan dhibsan. Halkaas ayuu xeeladiisii ugu horreeyay ka coratay. Markii safkii biidoonka ahaa dhex istaagay ayuu si kadis ah ku dhawaaqay, dadweynow dadweynow, waxaa ceelka ku dhacay abeeso weyn oo dadka qaniinaysa. Markii ereygaasi afkiisa ka soo baxay, safkii oo dhan waa lagu kala cararay oo qof walba naftiisa ayuu la baxsaday. Waxaa ceelka ku soo haray ciyaal shiilaad oo qoslaya. Wuxuu si fudud biyo uga soo shubtay ceelkii isagoo dadka kale ku leh, war iska caba, aniga ayaa geesi ah oo idinka badbaadinaya abeesadii. Markii dadkii soo noqdeen oo ay arkeen inuusan jirin wax abeeso ah, ayaguna biyo la'aan la daala dhacayaan, waxay isku dayeen inay ku kayliyaan ciyaal shiilaad, laakiin isagu sacabka ayuu biyo iskaga cabayaaba. War inay ka qasan tahay maahan. Dadkii oo qosol iyo xanaaq isku darsadeen ayaa ku haray meeshii, iyagoo garwaaqsaday inuusan ninkaani caadi qof caadi ahayn. Ciyaal shiilaad maalin ayuu u yimid qoys reer magaal ah. Maalin maalmaha ka mid ah ciyaal shiilaad ayaa galay guri reer magaal ah oo cunto iyo cadar aad u udgoon ka soo baxayaan. Markuu damcay inuu soo galo, waxaa ka hor istaagay ninkii guriga lahaa oo yidhi, war ciyaal shiilaadow, adiga had iyo jeer dadka ayaad khiyaamaysaa, gurigan wax kama heli doontid. Ciyaal shiilaad isagoo qosol dhooban leh ayuu ku jawaabay, khiyaano uma socdo, ee waxaan rabaa inaan idin baro xeelad cusub oo qoyska walba u fiican. Ninkii guriga lahaa wuu ka shakiyey, balse xaaskiis ayaa tiri, bal aan dhageysanno wuxuu leeyahay. Ciyaal shiilaad wuxuu fadhi dhigtay isagoo sheegaya in haddii uu caloosha xoqo 3 jeer, cuntadu iskeed u soo diyaar garoobayso. Dabcan taasi waa been iyo khiyaano kale. Laakiin si uu dadka u tuso, wuxuu ku dhaqaaqay xoqid calooshiisa. Markii uu sameeyey 3 jeer, nasiib darro waxaa dhacay arrin qosol badan. Cunug yar oo guriga joogay ayaa hooyadiis u keenay saxan hilib ah, isagoo aan ogeyn waxa meesha ka socda. Markii uu saxanka hortiisa la dhigay, ciyaal shiilaad kor buu u booday, bal wuxuu iskaga dhigi doonaa nin wax oge. Bal ka dhageysta xeeladii ayaan idin tusay, caloosheeda ayaan xoqay, cuntadiina waa taa diyaar ka noqotay. Dadkii waa qosleen, laakiin markii ay dhimceen inay isaga ceeriyaan, cunadii hortiisa yaalay ayuu gacanta hore u sii qaatay waana cararay isagoo cunaya. Cashirka qosolka leh. Ciyaal shiilaad mar walba uu dadku wax u baraya 2 arrimood. Ciyaal shiilaad mar walba dadka wuxuu barayay 2 arrimood: in aqli iyo xeeladii lagu noolaan karo haddii laga shaqeeyo, in qof walba uusan indho la'aan u rumaysan hadalka nin khiyaano badan. Taasina waa sax oo ciyaal shiilaad qofkii rumaysto asaga ayaa dhaqan bahaa leh. Dadka tuulada iyo magaalada uu mar walba booqdo way xanaaqaan mararka qaar, laakiin markay qoslaan waxay ogaadaan inuusan sheekadiisa ka marnayn cashar. Sheekooyinka ciyaal shiilaad ayaa weli ilaa iyo maanta lagu qoslaa, waxaana lagu tilmaamaa nin khiyaano badan balse aqli iyo xeelado badan oo mar walba ka baxa xaalad aad u adag. Halkaasina waxaa noogu soo idlaaday sheekadeena ciyaal shiilaad. Fadlan janaalkeena dusi subscribe ku sanay subscribe noo saar, aad bay noo dhiirigelinaysaa. Waana ku mahadsantahay daawashadaada. Waa inoo iyo marka xiga iyo fiidoo qurux badan.